astaamo ay wadaagaan dadka caqliga badan waxa hubaala in dadka caqliga badan had iyo jeer nagu dhex jiraan balse inta badan kama warhayno laakiin astaamahani waa kuwa ay wadaagaan dadka caqliga badan waxaad ila wadaagtaa saaxiib aad wadaagtaan astaamahan adigoon ka been sheegaynin saaxiib yaa la wadaag muuqaalkan asxaab fara badan oo gaarsii si iyaguna bal eegaan in astaamahan ay leeyihiin iyo in kale haddii aad ugu cusub tahay boggeennan follow iyo like dheh haddii dhanka YouTube aad nagala socotana subscribe tahay ilaawin dadka caqliga badan had iyo jeer way maskax furan yihiin dadka garaadka badan fikradaha iyo fursadaha cusub ilinka kama soo xirtaan oo inta badan waa kuwa isha ku haya fursadahana si aan caadi ahayn ay u arkaan had iyo jeer way ka faa'iideystaan waa kuwa leh caqli iyo maskax ay ku miisaamaan wax kasto soo mara waxay jecel yihiin cidlada iyo karinimada dadka dhugta badan ama dadka caqliga badan waxay wadaagaan astaamtan oo ay si weyn u wadaagaan inay yihiin dad aad u urursan waxay nacib yihiin buuqa isdhexgalka faraha badanna way ka fogaadaan si ka duwan dadka caadiga ah kuma qanacsan had iyo jeer baashaalka iyo waqtiga badan ee la qaato saaxiibada dadkan caqliga badan waxay door bidaan inay naftooda la kaliyoobaan haddii saaxiib ay rabaan inay kulmaanna waxay jecel yihiin had iyo jeer meel degan inay ku kulmaan dadkani waa kuwa maskax furan had iyo jeer waxay fursadaha iyo fikradaha ka arkaan meel aan caadi ahayn waxa laga yaabaa mararka qaarkood meel aanad fursad ka dhex degi karaynin amaba aanad malay karaynin in qofka caqliga badani ka dhex arkayo taasna waxay keentay inay noqdaan kuwa ka gaara guulo caqiibo leh nolosha iyagoo aan waqti badanba ku dhumin had iyo jeer dadkan waa lala yaabaa oo dadku waxay dhahaan waxaan waalan qofkana ma miir qabo ummado kale ayaad la shaqaysataa waddankaagii ma joogtid waxay dadku inta badan ku dhaliilaan maskaxdan aan caadiga ahayn ay dadkani leeyihiin laakiin uma joojiyaan dhammaan dhaliilahaas loo soo jeedinaya eedeymahaas waxaa u muuqata keliya fikradaha ay haystaan dadkan waa kuwo aamusan had iyo jeer aan mar kasta hadlin laakiin halka mar ay kaftamaan ay tahay mid aad loogu qoslo oo aad loola cajabo meesha ereyadani ka yimaadeen waxaa laga yaabaa dadka kale intay buuqa iyo isdhexgalka badan ku jiraan inaanay u fiirsanba waxyaabo badan laakiin dadkani waa kuwo u fiirsada tallaabada ka dambaysa waxay la socdaan jawiga meeshay joogaan caqabadaha imaan kartaa dhibaatooyinka jira waxyaabaha caqabadaha imaan karaa dhibaatada dhici karta waxyaabaha wanaagsan ee meesha yaalla sidoo kale waxay si weyn ula socdaan qofka hor fadhiya wax kasta oo ku wanaagsan yahay wax kasta oo ku xun yahay waxay leeyihiin awood la qabsi oo aad u sarreysa waxa laga yaabaa haddii maalmaha ka mid aad saaxiibkaaga ka haysato inuu maantaba ka cawdo inuu awoodi waayo inuu la qabsado guriga cusub aad keentay balse kuwa maskaxda badan had iyo jeer ma ahan kuwa waxaas ay u daaran tahay waa kuwa la qabsada xaalad kasta marxalad kasta iyo meel kastoo joogaan ma ahan kuwa isku mashquuliya dhibaatooyinka yar iyo caqabadaha yar ee nololeeda soo waajaha waa kuwa bedeli kara nolosha fursado ka dhigi kara caqabadaha sidoo kalena dhaafi kara marxalad kastoo nolosha soo marta waxay u ooman yihiin ogaal haddii aad aragto qof jaahila oo qof wax kastoo aad u sheegto ku odhanaya waan ogaa ama waan ogahay laakiin qofka caqliga badan waxaad ka dareemaysaa inuu rabo waxaan inuu imika ogaado waxba laga yaabaa inuu 10 jeer oo ka horreysay uu buugaag ka akhriyo amaba meel ka maqlay